السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome students. So dhawaada arday sharafta leh. Maanta waxaan bilaabaynaa cashirka ugu horeeya buugga intermediate-ka. Cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa unit 1. Unit 1 waxaan ku qaadan doonaa waa maxay? Can and can't. Shay aad karto iyo shay aadan karin. Okay. Aan ku bilowno waxaan ku bilaabanaa shayga aad karaysaa ama qofka sidaad u weydiin lahayd waxaan ma samayn kartaa qof yahow ama waxaan ma samayn kartaa shaygan maad karaysaa. Okay. Can you ride a bike? Can you ride a bike? Can you ride a bike? Okay. Can you ride a bike? Okay, baaskiilad maad kaxayn kartaa. Ride waa maxay? Waa kaxaynta sida baaskiiladaha, fardaha iyo wixii lamid ah. A bike no waa baaskiilada caadigeed. Okay, sectionkan ugu horeeya ereydan isticmaali doono waxa kamid ah can oo ahayd awood u lahaasho ama shay karid yani. Swim oo ah dabaal. Ride oo ah fuulida baaskiiladaha sida baaskiiladahan caadiga bilaa matoorka ay kuwa kale matoorku saaran yahay. Waxa kale oo kamid ah sida xayawaanka oo kaleeto fardaha dameeraha iyo geela markaad raacayso ama yani ku safrayso kale waxaa la yidhahdaa ride. Okay, a bike waa baaskiilad caadiya. A toe waa suu ama faraha lugaha mid kamid ah ayaa la yidhahdaa toe. Okay, qaybtan qofka waxaan weydiinaynaa waa maxay? Shaygan haddii uu karayo iyo sidii looga jawaabi lahaa. Can you speak English? Can you speak English? Okay, English ma ku hadli garanaysaa? Yes, I can. Yes, I can speak English. Ha, waan ku hadli karaya. Can you swim? Can you swim? Yes, I can. Can you swim? Can you swim? Yes, I can swim. Alright, hadda waxaan weydiisay qofkan waa maxay swim waa maxay dabaasho maad dabaalan garanaysaa yani ama dabaasho ma taqaanaa. Qofkan wuxuu yidhi waa maxay yes I can swim. Ha, waan dabaalan karaya. Can you touch your toes? Can you touch your toes? Farahaaga lugaha maad taaban karta. Touch waa taabasho, toesna waa faraha lugaha. Can you touch your toes? Farahaaga lugaha maad taaban karaysaa? Yes, I can't touch my toes. Ha, aan karaya inaan taabto farahayga ama lugahayga yani. Can you spell the word law? Can you spell the word law? Alright. Spell waa maxay? Higaadin soo higaadin karaysaa ereyga law. Okay. Yes, I can spell the word law. Ha, waan higaadin karaya yani. Okay, spell the word law, please. Okay, spell oo ah higaadi ereyga law, please oo ah yani fadlan. L-O-W. Okay, qofkii kan waa ka jawaabo higaadi ereyga. Can you answer my questions? Can you answer my questions? Okay, questions waa su'aalo. Answerna waa su'aalahayga maad ka jawaabi karaysaa. Okay, yes I can. Can they translate sentences into English? May u tarjumi karayaan sentences-yada English ma u tarjumi karayaan? Yes, they can translate. Ha, way karayaan. Do you have a bike? Okay, su'aashan waa su'aal ka duwan su'aalaha kaleeto oo ah ma leedahay bay noqonaysaa tan. Ma leedahay bay noqonaysaa. Okay, ma leedahay baaskiilad? Yes, I have a bike. Ha, waan leeyahay baaskiilad. Can you ride? Ride ah korid ama kaxayn. Can you ride a bike? Okay, baaskiilad ma kaxayn kartaa dan? Yes, I can ride a bike. Ha, waan kaxayn karaya. Okay, so can waa waxaa lagu weydiiyey qofku waxaad ku weydiinaysaa yani
waxaad isticmaalaysaa markaad qofku weydiinayso inuu shaygan awood leeyahay in kaleeto ama inuu shaygan samayn karay in kaleeto. Okay, jawaabtu haddaas waxay noqon kartaa, labada way noqon kartaa, marna negative bay noqon kartaa, marna positive bay noqon kartaa. Hadda waxaan soo aragnay qaybtan oo dhan waa maxay, jawaabahan oo dhan maxay ahaayeen, waxay ahaayeen jawaabo wada positive ah ama wada iijaabi ah ama maxay ahayd like ka wada bilowda maxay yes. Okay, su'aal walba qofku weydiinay, shay walba oo niri aan weydiin maad karaysaa, wuxuu yiri yes waan karaya suma. Okay, what about hadduusan karin, ka waran hadduusan karin shaygan. Okay, marka waxaa isticmaalaysaa maxay, cannot ama can't. Cannot ma karayo ama can't oo ah the short form. Cannot iyo can't isku macne, laakiin farqiga waa maxay, midna waa short midna waa long. Okay, Japanese oo ah qof dalka Japan u dhashay ama shay Japan lagu soo sameeyay ama adu wax Japan ka yimid waxay noqonayaan maxay, Japanese. Okay, waa gebi ahaan dance waa qof markuu ciyaarayo ama maxay jaasiyo. The walls waa qayb ka mid ah dance-ka ayaa la yidhaahdaa the walls. Okay, let's see, xaggan aynu ragno su-aalihiin baa la weydiinayaa qofka. waxaad weydiinaysaa hadduu shaygan karay yani, can you speak Japanese, luqada Japanese ma hadli kartaa? No, I cannot speak Japanese. Can I say a long sentence in Japanese? No, you can't say a long sentence in Japanese. Can you dance the waltz? No, I cannot dance the waltz. Can you sing all songs? No, I can't sing all songs. Can you answer all questions? No, I can't answer all questions. Can they translate sentences into Japanese? No, they cannot translate sentences into Japanese. Okay, jawaabahan waxay ka soo horjeedaan jawaabihii hore oo qaybtii hore markaan cid walba aan weydiino su-aasha waxay odhanaysaa maxay, yes soo maaha. qaybtan waa maxay, waxaa lagu barayaa sida loo isticmaalo cannot iyo can't, labadoodu waa isku mid, laakiin shayga kana waa inaad soo markaad soo gaabsada isticmaalaysaa, kana waxaad isticmaalaysaa markaad shayga asagoo dhamaystiran aad odhanayso. marka basically waa isku mid, qofka kolbadkiisu ku sahlan qofka ay ku xiran tahay. Alright, okay, and look at this. waxaan iska dhamaystiraynaa pagekan oo ah page 2ga ayaan dhamaystiraynaa. Good and place. Good place. Good place. Alright, good waa maxay, wanaagsan, a place waa goob. Okay, so qaybtan waxaan isticmaalaynaa su-aalo kuwii hore ka duwan. waa marka hore waxaan isticmaalaynaa can you ma karaysaa. hadda waxaan isticmaalaynaa su-aalo qayb ka duwan qaybtii horeeto oo ayaguna lamida kuwii hore oo aad weydiinayso qofku wuxuu yahay iyo ma wuxuu qaban karayo ama saas oo kaleeta yani. Are you a good student? ma tahay arday fiican? Yes, I am a good student. Is food with a lot of sugar good for you? cunto leh sokor fara badan miyay ku fiican tahay? No, food with a lot of sugar isn't good for me. cunto sokor badan leh ima fiicna. Okay, which place do you like in this town? Which place do you like in this town? Okay, goobteed ugu jeceshahay magaaladan gudaheeda? I like the park in this town. waxaan u jeclahay yani park ama meeshan xadiiqada ayaan ugu jeclahay magaaladaba. Is this school a good place to speak English?
iskuulkan ma yahay goob fiican oo luqadda lagaga hadlo? Yes, this school is a good place to speak English. haa wuu yahay iskuulkan meel goob fiican oo Englishka lagaga hadlo. Alright, u gudubno sectionkan kale. waxaan wadnaa weli qaybihii su-aalaha ama si su-aalaha loo weydiinayo dadka ama su-aalaha dadka aad weydiinayso. Make waa samayn. A computer waa computerka caadiga ahaa ayaan wada naqaanay. Do you often make dinner? maad samaysaa cashada in your house gurigiina markaad joogto? Make waxay noqon kartaa karin. Okay, maad karisaa cashada ama maad samaysaa cashada markaad gurigiina aad joogto? Yes, yeah, I often make dinner in my house. haa inta badan waan sameeyaa markaan guriga joogo. Which countries make a lot of computers? Which countries make a lot of computers? waddamadee sameeya computer fara badan oo soo saara? China and Japan make a lot of computers. China iyo Japan ayaa sameeya computer fara badan. Do people usually use computers at work? Do people usually use computers at work? Okay, dadku usually inta badan ma isticmaalaan computer markay shaqada joogaan? Yes, people usually use computers at work. haa isticmaalaan. Can you use a computer? Alright, marka waxaad weydiinaysa qofka sheegi karaya. Yes, I can use a computer. Okay, cashirkeena maanta focuska muxuu ahaa? wuxuu ahaa sida qofka loo weydiiyo su-aalo waxay noqon karayaan yani about anything. waxaan aragnay yani qaybtii ahayd oo yani shaygan ma karaysaa. Okay, waxaan kaloo aragnay su-aalihii ku bilaabmay verb to be gu ahaa are you ma tahay ama cuntadu miyay ku fiican tahay. laakiin su-aalaha waxay common yihiin ama ay wada wadaagaan oo maxay waa jawaabta aad ka bixin karto su-aalahan. Okay, su-aalahan waxay leeyihiin hal jawaab oo ah yes ama no. Yes ama no. intooda badan waxay sheegayaan waa maxay ama waxaad uga jawaabtay yes ama waxaad uga jawaabtay no. So marka su-aalahan fara badan oo dhan waxaa la yidhahdaa waa maxay cashirka maanta aan soo qaadanay dhan waxaa la isku yidhahdaa iyagoo dhan yes or no questions. Yes or no questions. insha allah intaas way noo sii socdaan weli casharadu ama su-aalahan la isweydiinaya ilaa cashirka dambe insha allah. cashirka dambena inta ayuu ku saabsanaan doonaa ba intaan kulmayna cashirka dambe insha allah. sidaa nabadgelyo arday. insha allah I'll see you in the next lesson. Thank you.